waxgaradka madax dhaqameedka iyo cuqaasha beelweynta Gabooye ee gobolka Togdheer ayaa uga mahadnaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisu deeq raashina oo ay dawladdu ugu deeqday barakacayaasha iyo dadka danyarta ee beeshani Suldaan Nadiif Sayd Jibriil iyo madax dhaqameedka ka soo jeeda beelweynta Gabooye oo warbaahinta la hadlay ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadiyay tallaabada uu qaaday waxaanay ka dhawaajiyeen in deeqdan ay gaarsiin doonaan dadkii loogu talagalay Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa iyo wasiiradiisa iyo wasiirta arrimaha gudaha waliba aad bay ayaan u hambalyeynaa sida wanaagsan ee ay tayeeleen maanta beelaha afarta haamood ee abaaruhu heleen iyo afarta haamood ee yaala magaalada Burco madaxweynaha Soomaaliland wuxuu dhaweyd haltan martuu maray ee magaalada gobolka Togdheer wuxuusan ummadda tala siin raashin uusan siin buu siiyay beelaha afarta haamood aan idin soo sheegay wuxuu siiyay 2 tun oo qoys ay raashintood waa 2 tun oo qoys raashintood baa ay wada saabtay intuu yeeray si beesha afarta haamood baratacood haltuu u tala dalay waxa weeye waa dadkii xontida xoolo tambadheen iyo dadkan jilicsan ee maanta burcayaala waxaan u mahadnaqaynaa madaxda Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana u hambalyeynaa maanta ka hor wax madax bixisaba oo ay noogu dhawaaqdaba maanta loo annagu waxaanu ka soconnaa 4 magaalo oo dadkii barakacayaasha aan ku ururinay waxa kamid ah Dar es Salaam Galooley meesha la yiraahdo Yabo Balidhig 4 magaalo yaanu ka soconnaa xaquuqdoodii baanu doonaynaa kuma xilna dad kale intaas aanu dawladda u sheegaynaa iyo xukuumadda barasaabka waxaanu ka codsanaynaa waxayaga in hadal la'aan iyo muran la'aan naloo siiyo waayo waxa la dhicisinta birta loo soo sido baqtiyaa dad maata oo jilicsan oo aan xoolo iyo adduun midna haysan yaanu ka nimid intaas aanu ka codsanaynaa barasaabka waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Biixi aad baan ugu mahadnaqaynaa waa mar labaad iyo mar saddexaad buu ku celeynaa waa u mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ugu mahadnaqay iyo dadka maartay jilicsanida xaquuqdooda yaan ugu mahadnaqaynaa ha jiro ha jooga baanu leenahay waxaanu ka nimid 4 magaalo sida gudoomiyaha Dar es Salaam sheegay 4 magaalo waxa la kala yiraahdaa Dar es Salaam Garooley Balidhig iyo Yabo waxa degan dadkii xooluhu ka dhamaadeen ee barakacayaasha ahaa magaalana aan waxba ku lahayn 4 deegaan oo labana ay galbeed kan tahay labana xagga bariga tahay weeye dadka ugu daran ee imka abaaroobay xoolihii ka dhamaadeen in xaquuqdooda la siiyo oo aan la xaasidin sida madaxweynuhu u bixiyay iyo dawladdu in loo siiyo loo gaarsiiyo Galooley waxa weeye meelihii la degay dadkii abaaruhu ku dhaceen ee xooluhu ka dhamaadeen ayaa degtay maalin dhaweyto war baa noo yimid warkaas waxa la yiri wuxuu idin siiyay beelaha Gabooyeba la siiyay madaxweynaha Soomaaliland wuxuu siiyay 2,000 oo qoodin ah oo raashin ah oo qoys ayuu siiyay sidaa daraadeed ayaanu gobolka u nimid si wacan aanu u qaybsan oo naguba filan 2,000 ee maanta ilayna siiyay ee Soomaaliland ina siisay waa mid aynu aad iyo aad ugu mahadcelinayno dadka barakaca iyo Yabo ka soo kacay ee aanu maqalay madaxweynihii Muuse Biixi 2,000 oo qoys buu idin siiyay nacfiga 2,000 yaanu nahay waanu ku soconaynay waa ku mahadnaqnay mar hore iyo mar dambe waa ku mahadnaqaynaa xukuumadda iyo madaxweynaha waa u mahadnaqaynaa sida hore loo sheegay waxaan ugu mahadnaqaynaa karaameynta iyo waxtarka madaxweynuhu ugu deeqay waan ugu mahadnaqaynaa iyadoo anagu aanu nahay beesha Gabooye waxaanu u mahadnaqaynaa Muuse Biixi wasiirka arrimaha gudaha aanu u mahadnaqaynaa ashinkiina la siiyay madaxweynuhu uu na siiyay waxaanu codsanaynaa hadaanu barakacayaasha nahay in nala amba bixiyo waxaan ahay caaqilka Balidhig ka yimid hadii alla ka dhigo qaxoontiga jooga ayaan ka imid waxaanu imid wixii dawladdu nagu caawisay inaanu helno Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Jookar telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Burco.